sidoo kale dhageystayaal dadka qaraxaasi noloshoodu ku waayay waxaa ka mid ahayd gabadh wariye ah oo lagu magacaabo hodan axmed saciid hodan naaleeye iyo saygeeda jaamac fariid haddaba taariikhda suxufiyadda waxaan ka waraystay wariye maxamed axmed ilkacse oo ku nool dalka Canada oo ah halka ay ku soo barbaartay wuxuuna iga waramay aqoontii uu u lahaa marxuumadda. الله نحريستو ولاشن هذا أحمد سعيد ناليه هذا مركي بلاويسي تلفزيون كإنتجريشن تي في أو ويب تي في لما كان ودن كندا لقد عوضه تي في اللي هذا أمني أو أفف كلا دون كبحة أو أي ساعة كل هايد أنا أنا ودن كعصبان كلا قيب قاعدين شري أو أنا حلقة دي جوهرية برامج كاس دور في بلاد جوهرية أنا لسه ساري شري marka hodan barnaamijyo waxaan wada sameyn jiray ku saabsan mesela xikmadda iyo mahmaahiyada afka Soomaaliga oo carruurta yar yar Soomaaliga lagu jeclaysiinayo oo laga qoslinayo oo loo fasirayo oo kala duwan waxay jeclay aad in looga sheekeeyo carruurta yar yar la baro af Soomaaliga iyo xikmadiisa iyo nuxurka ku jira iyada oo laftigeedu markaas Soomaaligeeda aad u xoojinaysay oo markaa dhisay Soomaaligeeda marka hodan barnaamijyadaasaan wada bilownay jacaylka iyo energy-ga iyo niyad wanaagga Soomaalida oo haysanayo Soomaaliyana wuxuu hodan uu ku dhashay ku bilowday 2011 bay Allah naxariistay waxay safar ugu soo raacday gobolka geeska Afrika gaar ahaan Nairobi iyo xiriyaha qaxootiga ee Dadaab Allah naxariistay Saada Cali Warsame oo idana la dilay الله نحرسته هذا مركي دوان وسو wareegtay Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxay xoog saaraysay barnaamijyo oo si gaar ah ay ku eegaysay dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya iyo horumarka uu dalka gaaray marka maxaa arintan ku dhaliyay iyadoo waliba qurbaha ku barbaartay waxay hodan xoog saaraysay sida dhowr jeer ay sheegtay rabtay inay tirtirto waxay sheegtay inay waxay ahayd hooyo laba wiil oo yar yar dhashay oo qurbaha ku dhashay iyadoo qurbaha ku barbaartay iyadoo yar bay wadankan timid marka waxay doonaysay narrative-ka ama sheekada reer galbeedka iyo dadka ajnabiga ay Soomaaliya ka aaminsan yihiin inay bedesho ujeedka ugu weyn ee wuxuu ahaa in markii YouTube-ka iyo Google-ka iyo aaladaha social media wax laga baaro markuu qofka ajnabiga ah gala ee Soomaaliya raadinayo inuu war wanaagsan uu ku arko oo quruxda dabiicadda uu ku arko oo uu dhaqanka Soomaalida ku arko oo uu wanaag iyo magaalooyin qurux badan ku arko meesha inta badan la arko dhibaatooyin iyo qarax iyo macaluul iyo dhibaato uu jirta marka waxay rabtay inay bedesho perspective-ka ama narrative-ka Soomaalida laga qoray ee aanay iyagu qorin marka arintaasi xoog saaraysa hodan waxayna aad iyo aad ugu dadaalaysay ay wadanka gobolka kala duwan bay tagtay mar walba oo ay meel tagtana sheekooyinka quruxda badan bay raadinaysay barnaamij kasta ama dhacdo kastana waxay ku dadaal jirtay inay qayb qurux badan ka dhaxesho oo qaybta dadweynaha la wadaagto maadaama af Ingiriisigu uu ahaa luqadeeda koobaad oo ay English as first language u hadli jirteen waxay rabtay inay dadka Soomaalida ay qurbaha ku dhashay ku barbaaray iyo ajnabigaba ay ka dhaadhacsiiso inay jirto Soomaaliya kale oo aan aad looga waramin waa tahay gabadha wariyaha ahayd maxaad ku taqaanay oo gaar ahaan ugu xasuusan doonaa الله نحرسته ولاشن هذا أحمد سعيد ناليه waxay ahayd gabadh uu ka buuxo energy nabdoon oo activity iyo firfircooni ay ka buuxdo dhanka wanaagsan oo positive-ka u badan oo waxaad moodaysaa inuu wadanku qaan ku leeyahay oo doonayso inay Soomaaliya u guddo dadka Soomaaliya ku dhashay ama ku barbaaray ama wax ku soo bartay way uga leexay jecel badnayd Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxay ahayd qof dhacdo kasta qayb wanaagsan ka raadisa oo qaybta wanaagsan ay dadka la wadaagtay jeclayd waxay ka warrami jirtay mahmaayaha Soomaalida iyo xikmadda Soomaaliga ku jirta iyadoo waliba Soomaaligeedu markii hore yaraa hodan waxay ahayd dadka naadirka ah ee aad isweydiinayso xagee bay ka heshay energy-gan iyo jacaylkan siyaadada ah ee ay wadankeeda iyo dadkeeda u qabto mar kastana waxay ku soo celcelin jirtay oo ay dadka u sheegi jirtay in ay Soomaaliya ay sidan hadda looga warramayaan ahayn ay mustaqbal leedahay rajo leedahay oo dadku ay u samraan saado oo iyada oo ahayd role model markii la dilay halka hawsha kaga maysan harin way sii waday marka hodan waxay ahayd qof aad iyo aad u diiran oo qiimo badan ilaahay ha u naxariisto hodan Axmed Saciid naaleeye iyo saygeedii labadeeda wiil iyo hooyadeed iyo aabaheed iyo dhammaan walaalaheed iyo ehelkeed iyo ummadda Soomaaliyeed samir iyo ilaahay ka siiyo
amiin 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 ayaynu leenahay anagana kaasi waxa uu ahaa wariye maxamed axmed ilkacase oo ku nool dalka Canada oo ka mid ah dadkii ay asxaabta ahaayeen islana soo shaqeeyeen wuxuuna iga waramayay aqoontii uu u lahaa alla u naxariistay hodan axmed hodan naaleeye oo ahayd gabar wariye ah oo marka iyada iyo saygeeda ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay qaraxii iyo weerarkii xalay ka dhacay magaalada Kismaayo. waa hagaag alla u naxariistay hodan waxa ay qorsheynaysay inay samayso barnaamijyo waxaana ii suura gashay inaanu la xiriiro Simon Taveta oo ah muuqaal duubaheedii qaaska ahaa iyo soo saarihii barnaamijyadeedii. Okay, I've known Hodan since she came. Hodan waxaan isnaqaanay tan iyo markii ay dib ugu soo laabatay Afrika markaasi oo ay ka timid dalkaasi Canada. To Africa when she came from Canada. وهجاجين سايمون sidoo kale waxa uu ii sheegay in shalay subaxii Allah u naxariistay hodan iyo isaga ay ka wada hadleen barnaamijyo iyada u qorsheysanaa inay samayso maraan wax ka weydiiyay barnaamijyadaasi qorshaha ugu jirayna wuxuu ku jawaabay. One of them was we wanted to do a story on a young Somali girl who is a pilot. barnaamijyada aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa inaan warbixin ka diyaarino gabar Soomaali ah oo duuliye ka ah diyaarad si ay gabdhaha kale ugu dhiiradaan. waxaan kaloo barnaamij ka diyaarin rabnay wiil Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo qashinka dib loo warshadeeyo ka soo saara boorsooyin. waxaan kaloo ka wada hadalnay inaan wareysi la yeelan doono xildhibaanka laga soo doorto Kamakuji Yuusuf Xasan si loo ogaado qorshaha u degan ee ku aadan dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii. waa barnaamijyada inoo qorsheysnaa inaan isbuucyada soo socda sameeyno. So those are some of the stories we were actually planning to do in a few weeks to come. Watahay kaasina waxa uu ahaa Simon Taveta oo ah muuqaal duubaheedii qaaska ahaa iyo soo saarihii barnaamijyadeeda oo iga waramayay sidoo kale barnaamijyo uu sheegay in u qorsheysanaa iyo kuwa diyaarsan oo toddobaadkanba lagu waday in la soo saaro. Watahay dhageystayaal qaraxan ka dhacay Kismaayana waxaa sheegatay mas'uuliyadiisa ururka Al-Shabaab sidaan horeyna idin sheegayna wararka ka soo kordha weerarkaasi qaraxa ka dhacay ee Kismaayo waxaad ku maqli doontaan idaacadeena dambe iyo sidoo kale waxaad kaga bogan kartaan boggeena internetka ee bbcsomali.com haatana aan Facebooka galo dhageystayaasha qodobkan raayigooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah Bashiir Cabduqaadir waxa uu leeyahay intii ku nafweyday qaraxidii xalay ee gilgilay magaalada Kismaayo waxaan eebbe ugu baryayaan naxariistii janno inuu irsaaqo waalidkooda iyo awlaadii ay ka tageenna samir iyo iimaan Allah siiyo sidoo kalena waxaan si gaar ah u tacsiyeynayaa wariye hodan iyo saygeedii kuwaasi oo waxa uu leeyahay hayaan dheer u soo galay inay dalkooda ka qabtaan horumarkiisa laakiin nasiib darro naftoodii ayay ku waayeen taasina joojin mayso juhdiga iyo dadaalka lagu jiro in dalkani nabad waarta lagu soo dabaalo waxaa kaloo dhageystayaasha ka qayb qaatay Facebooka qodobkaasi ka mid ah Aamina Ifraax Cabdi oo joogta magaalada Gaarisa waxay leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun runtii aad iyo aad ayaan uga xumahay geeridii walaasheen Hodan Naaleeye iyo saygeeda oo ka mid noqday dadkii ku geeriyooday weerarka shalay ka dhacay Kismaayo waxay leedahay ilaaha u naxariisto Hodan waxay ahayd hormuudka gabdhaha Soomaaliyeed waxay ahayd gabar baraarujisada gabdhaha Soomaaliyeed taariikhda ayay xusi doontaa Hodan runtii geerideeda xanuun ayay nagu reebtay haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed ayay leedahay gabadhaasi aad bay u mahadsan tahay anaguna haddii aan nahay bahda BBC waxaanu leenahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo ehelka iyo qaraabada ay ka tagtay Hodan iyo waliba saygeeda